Assalaamu calaykum. Maanta waxaan haynaa dhul iib ah oo nisbalood ah oo meel aad iyo aad u wanaagsan ku yaala. Dhulkan oo cabirkiisu yahay 12 iyo 20 ayaa ku yaala xaafadda Dolodo, gaar ahaan Shulaac. Dhulkan waxaa ka soo horjeeda masaajidka aad arkaysaan. Xaafadda uu dhulkan ku yaala waa xaafadda Dolodo. Dhulkan waxa uu dhow baska idaacadda ee Dolodo oo in yar u jira, ama wadada ka imanaysa Timaweynta ee boqoliyo kotonka ka soo baxaysa ayaa dhowr talaabo u jirta. Dhulkan dhinaca bariga dhisma ka xiga, sidoo kale dhinaca galbeedkana dhisme ayaa ka xiga. Dhinaca waqooyigana jaga ka xigta ama dhisma ka xiga. Dhinaca koonfurtana wadda ka xigta. Masha Allah, waxa weeyaan dhul ku yaala meel aad iyo aad u wanaagsan oo laf ah oo ku soo baxaysa dhismaha iyo in wax guri laga dhisto. Dhulku waa dhulka weeyaan. Masha Allah, halkan geed baa ka baxay. Halkan dhisma kaga xiga, halkan kalena dhisma kale kaga xiga. Masha Allah, halkan kalena dhisma kale kaga xiga oo guryo kale xagana kaga xiga. Marka wajahadiisa waa dhankan. Wow, Masha Allah, waa dhul aad iyo aad u fiican. Cabirka dhulka dhinacan hore waxa uu yahay 12, dhinaca kalena waxa uu yahay 20. Masha Allah, dhulka wuxuu ku yaalaa meel laf ah oo aan ahayn dhul jilicsan oo dildilaacaya. Waa dhulkii loogu talagalay guryaha in laga dhisto. Masha Allah. Sidoo kale masaajid ayaa u dhow oo guriga soo eegaya xagga koonfur ka xiga. Marka masaajid iyo xaafadda Dolodo iyo meel laf ah, meel aad iyo aad u fiican weeyaan. Qofkii hela waa qof nasiib leh. Jagadu xaggaas ku joogtaa. Halkan guri baa ka xiga, halkana guri kale ka xiga. Waa intaas. Marka waxaa kaaga dhismaya guri 5 qol ah oo waaweyn oo deyrkiisii wata sida guriga halkan oo kale naga xiga. Wow, Masha Allah. Inta badan guryaha intan baa laga dhisaa. Marka sidoo kale qofkii doonaya ama qofkii haya jago ama dhul in uu iibiyo oo loo soo duubo oo YouTube-ka loo soo geliyo oo loo iibiyo, isaguna sidoo kale wuu nala soo xiriiri doonaa. Waanu soo duubi doonaa, dhulkana waa loo iibin doonaa. Masha Allah. Dhulka waxa u dhow wadadan oo ka imanaysa boqoliyo kotonka oo wadada Timaweynta loo yaqaano oo tegaysa garoonka Shulaac ayaa dhulka ag maraysa. Marka dhulku meel aad iyo aad u fiican ku yaala. Qofkii nasiib helaana waa dhul qaali weeyaan, wanaagsan. Asxaabta, dhulku waa kaas. Qiimaha dhulka la siinayo waa 30,500. wixii la iska deyn karo waa isla eegayaa. Insha Allah, lambarka shaashada ku qoran baad nagala soo xiriiri doontaan wixii faahfaahin ah. Insha Allah, waa inoo mar kale iyo muuqaal kale. aad iyo aad baan idin salaamaya asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan. Assalaamu calaykum.